wuxuu idhahay tani waa fikraddii ugu xumayd ee aan weligay maqlo. dadku waxay ka fikirayaan waxyaabo waaweyn. waa ereyadii aasaasihii shirkadda KeepCap, Mrs. Abigail Forsyth. markii ugu horreysay ee ay Abigail la timaado fikrad ku saabsan ganacsigeeda iibinta koobabka qaxwada ee dib loo isticmaali karo, waxaa ku gacan saydhay mid ka mid ah dadkii wax ka nashqadaynayay ee ay ula tagtay. wuxuu igu yidhi, fikraddaada waa tii ugu doqonnimo badnayd ee aan abid maqlo, ayay tidhi Fogow Abigail. xaaladdu way sii darsatay kadib markii ay u tagtay maamulaha warshad ay damacsanayd inuu u sameeyo koobabka. wuxuu igu yidhi, waxa aad ka hadlaysaa waa koob uun. dadku waxay ka fikirayaan waxyaabo waaweyn. wax qiimo fiican leh ayay dalbadaan in loo warshadeeyo, wayna kaa fikrad fiican yihiin. xitaa waxaa jira dad aanu u warshadayno alaab ka fiican alaabtaada, wayna u gedmi weyday. markii ay hawshan bilaabaysay waxay ahayd sannadkii 2008. waxay ku sugnayd magaalada Melbourne ee waddanka Australia. Abigail iyo walaalkeed Jamie waxay la yimaadeen fikradda ganacsi ee KeepCap sababtoo ah waxay ka walaacsanaayeen balaayiinta koob ee aan dib loo isticmaali karin ee sannad walba qashinka lagu tuuro marka qaxwada lagu cabo hal mar oo keliya. markii horeba way ogaayeen sida xaaladdu u xun tahay, waayo waxay 10 sanno oo xilligaas ka horreeyey ku ganacsan jireen meherad qaxwada lagu iibiyo. waxay dareemeen in la joogo wakhtigii ay go'aan ku gaari lahaayeen inay soo afjaraan xaaladdaas. waxaa ka go'nayd inay ganacsigooda heer fiican gaarsiiyaan. si dhab ah ayaan fadhiga uga kacnay, ayay tidhi haweenaydan oo hadda 48 jir ah. maanta shirkaddooda KeepCap waxay caalamka ka iibisay 10 milyan oo koob. waxay shirkaddooda qiyaasaysaa in koobabka ay iibisay lagu badbaadiyey 8 milyan oo koob oo qashinka lagu dari lahaa. Abigail oo ku dhalatay magaalada Glasgow balse ku kortay Melbourne, waxay markii hore baratay cilmiga sharciga. 4 sanno markii xirfaddeeda ay ku shaqaynaysay laga soo bilaabo 1994kii way iska dhaaftay, waxayna furatay meherad lagu iibiyo qaxwada. markii ay iyada iyo walaalkeed muddo wadeen hawsha ayuu Jamie ku qalqaaliyey fikrad cusub, wuxuuna u bidhaamiyey inay guulaysan karaan. Jamie mar walba wuxuu dhihi jiray, tani waa fikrad fiican oo heer sare gaari karta. anigana waxaan ka fikirayay bay tiri sida ay suurtagal ku noqon karto dadkana looga dhaadhicin karo. koobabkii ugu horreeyey markii loo warshadeeyey sannadkii 2009kii waxay bilaabeen in ay ku iibiyaan meherad yar oo ay ka sameeyeen isla magaalada Melbourne. Abigail waxay sheegtay in koobabkooda ay noqdeen sidii wax dadka oo dhan ay sii sugayeen. isla markiiba waa la kala boobay. muddo 6 saacadood gudahood ah waxay ku iibiyeen ilaa 1000 koob. noocii ugu horreeyey ee aan samaynay waxaa lagu jeclaaday qaabka ay yihiin. sidaas ayay tiri Mrs. Abigail. dadka waxay dhahayeen, ma aqaano waxa uu yahay, laakiin hal mid iga sii iibi. dhowr sanno gudahood ayuu ganacsigoodu sare ugu sii kacay, ilaa markii dambe dalabaadkoodu ay aad u bateen. waxay sheegtay inay ka qayb galeen bandhigyo ganacsi oo dhowr ah. dakhliga sannadkii u soo xarooda shirkaddan ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay 8 milyan oo dollarka Australiyaanka ah, oo u dhigma 5 milyan oo dollarka Maraykanka ah. waa tahay daawadayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kale waxaanu idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.